ujeedada iyo fikradda aan barnaamijkan u daahfurno waxay ahayd Soomaalida ganacsi qurux badan leeyahay number 1 waxay tahay wax walba qurux badan hadda aan soo bandhigin cid ogaanaysa ma leh waxaan rabnaa biidnillaahi alkariim in barnaamijkan soo celin doono xiriir ka dhexeeya ganacsiga iyo muwaadinka sidoo kale soo celin doono xiriir ka dhexeeya ganacsatada la dhaxdooda dawladdu waxay qaadanaysaa kaalinteeda maxay tahay kaalinteedu waxa weeye inay abuurto jawi ganacsigu u hana qaadi lahaa inay shuruucdii u samayso hadda ganacsi soo sharci loo baahna in shuruucda u samayso iyo inay dhiirigeliso maalgashiga gudaha iyo kan dibadda intaba waxaa intaas dheer inay dhiirigeliso warshadayntii dalka iyo wax soo saarka